السلام عليكم كسودو برنامجكين امتحانها ee caalamka jinka halqadiisii saddexaad soo degitaankii nabi aadan calayhi salaam aadan aad ayuu ooyay kadibna waxa uu sogotiyay kulli intii jannada ku jirtay oo idil ilaa heer ay geedihii la ooyeen intaan geedka cuudka ee la shitaan ka ahayn markaas geedka cuudka waxa la weydiiyay adiga ooyi maysid miyaa wuxuu yiri macaasi ayaan u ooyaa markaas loo dhawaaqay geedkii oo lagu yiri sidaad amarkeena u weynaysaa ayaan ku weynaynay laakiin waxaan ku hibeynay gubida geedka cuudku wuxuu yiri tanna maxay ahayd waxa lagu yiri adigu waad weynaysay sidaas oo kale ayaguna ku weynaynayaan laakiin qalbigaagu uma guban mid kaan jeclayn waa aadane sidaas daraadeed ayay ku gubayaan aadan markuu albaabka jannada yimid ayuu mid labadiisa lugood ka mid ah albaabkaas ka soo saaray wuxuuna yiri bismillaahir rahmaanir rahiim markaasuu jibriil wuxuu ku yiri waxaad ku hadashay erey weyn markaa waxoogaa taagnow iyadoo ay dhici karto inaan midka loo jeedin oo ku tuuro markaasaa jibriil loo dhawaaqay oo lagu yiri iska daa baxee markaasuu jibriil yiri ilaahow waxa uu kugu yeeray arrahmaan oo ah midka naxariista badan ee markaa u naxariiso markaasuu eebay yiri haddaan u naxariisto tahay naxariistayda waxba ka dhimi mayso hadduu tagana waxba lagu ceebayn maayo markaa iska tagay iska daa kadibna soo laabtay isagay la socdaan malaayiin dhashiisa kamid ah oo caasiyina si uu arko deeqdeena aan ubadkiisa siinayno uuna u ogaado waasicnimada raxmadeena markaasuu aadan waxa uu ku soo degay buur la yiraahdo Booth oo ku taala dalka Hindiya aadan waxa uu la soo degay caraftii jannada caraftaas oo ka dhigtay Hindiya geedaheeda kuwa udgoon kuwaas oo intii ku taalay ay carafi ka buuxsantay xaawna waxa ay ku soo degtay Jiddah waxa kale oo la wariyay inay ku soo degtay Carafo Iblis waxa uu ku soo degay dhulka la yiraahdo Al-Ubullah ahna dhul u dhow magaalada Basra ee dalka Ciraaq waxa kaloo isna la wariyay in lagu dejiyay Jiddah dhiiga caadada ama xaydka haweenka Abdullah ibn Abbas waxa laga wariyay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri aadan uu maxaa kugu xambaaray ama kugu kalifay waxaad fashay aadan wuxuu yiri waxa ay qurxisay xaawa markaasuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku yiri markaas anigu waxaan ugu abaal marinayaa inayna xaamilo noqon iyadoo ku dhibtoota mooyee waxaana dhiig ka keenayaa bishiiba 2 goor waxa kaloo la wariyay in sababta xaydka loogu rida ay tahay ciqaab looga abaal marinay inay geedka dhiig ka keentay iyo waliba ciqaab inay abeesadii lugaha ka jajabisay waxaana dhici karta inay intaas oo idilba sabab u ahaayeen al-Hakim iyo Ibn al-Munthir waxay isna saxiixa uga wariyeen Ibn Abbas inuu yiri bilowgii xaydku wuxuu xaawo ku dhacay kadib markay jannada ka soo degatay oo ay dhulka timiday Ibn Mas'ud waxa uu yiri ragga iyo haweenka reer Bani Israa'iil way wada tukan jireen markaas ay haweenku ragga jirkooda u muujin jireen markaas ilaahay dhiiga xaydka korkooda yeelay una masaajidiyada ka reebay al-Bukhari wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu noo sheegay inuu dhiiga xaydka uu yahay amar uu ilaahay dul dhigay gabdhaha aadan korkooda dhiiga lagu riday gabdhaha reer Bani Israa'iil wuxuu hayay muddo gaaban taasoo abaal marin ama ciqaab looga dhigay ee maaha inay iyagu ugu horeeyeen gabdhaha uu xayd ku dhaco saasuuna xaydkii xaawo ku noqday dhiigii ugu horeeyay ku dhibca dhulka oo intii aadan uu ooyay maalinkii jannada oo ka soo tagayay Abdullah ibn Mas'ud Allah ka raali noqday waxa uu yiri haddii ilmada dadka arliga degan oo idin lasku keeno oo la barbar dhigo ilmadii uu aadan ooyay waxa badan doonta ilmadii oo aadan ooyay markaa tiiraanya uu ka calool xun yahay ka soo tagida jannada uu ka soo tagay iyo inuu geedkii laga reebay cunay sababtuna waxay ahayd cabsi uu cabsaday iyo xishood uu xishooday iyo kaamilnimo ay qalbigiisa ku sugan tahay weynaanta Ilaahay aadan waxa uu ooyay 100 sano isagoo aan madaxiisa marna samada kor ugu qaadin xishood uu rabbigiisa ka xishoonayo daraadeed aadan wuxuu ahaa mid markuu arko malaa'ikta samada kor u sii galaysa iyo kuwa ka soo deganayaba hilowga wadankiisa u qabo uu kordho wadankaas oo ahaa beelaha kala duwan ee jannada kuwaas oo isaga loo baneeyay inuu dhexdeeda ku jiro aadan waxa uu indhihiisa ku arki jiray malaa'ikta inkastoo aynan cadeyn inuu suuradooda asliga ah ku arki jiray iyo in kale waxaana la sheegay inay tahay arrin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gooni loo siiyay oo isaga khaas u ah inuu arko malakul jibriil suuradiisa asliga ah taasoo uu 2 goor ku arkay marka midkaaga aqliga fayowlahow u fiirso siduu aadan aabaha ugu fadhiistay sariirta boqortooyada oo sida aan soo sheegnay ka samaysan dahab iyo yaaqut taasoo 700 lugood leh oo aadan karaamiin loogu fadhiisiyay oo markaas gacanta u taagay luqmad laga reebay oo markaas jannada looga soo saaray marka ubidkiisu iska jira cirib xumada macaasida maxaa yeelay qofkay haleesho hoos ay u dhigtaa martabada uu lahaana way ka dejisaa كوفاريدا آدن أبا محمد ومقعوه إلهي آدن وقو مقعاوي أبا محمد أو محمد أبيس وحال وري إن مركي إلهي سبحانه وتعالى وأبور آدم وكو إلهامي كنهر إنتان أحد ملائكتك مده أوسان كوفارتا سوغو يرين إنو يراهدو ربك يوم حد يقو كوفارتا أبا محمد أو أبيه محمد إلهي سبحانه وتعالى وحوري آدن ومدحا كر أسوقات مركاسو آدن مدحيس كر أسوقاتي مركاسو وحوكو أركي نور كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو سورة دي سلاح مركاسو آدن عليه السلام يري ربي يوم حوها نور كني markaasuu Eebbe subhanahu wa ta'ala yiri kani
waa nuurka nebi dhashaada ka mid ah magaca malaa'igta samada u taqaana uu yahay axmedun dadka arliga deganaa ay u yaqaanaan muxamedun hadduusan isaga ahaan lahayn kuma aanan abuurneen mana aanan abuurneen sami iyo arli midna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu waxyooday ciise wuxuuna ku yidhi aamin muxamed ummadaadana waxaad amartaa inay iyaguna rumeeyaan oo haddayna muxamed ahaan lahayn ma aanan abuurneen jannada iyo naarta midna markaan carshiga biyo korkooda ku abuuray ayuu nuxnuucsaday markaasaan waxaan korkiisa ku dhigay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah markaasuu xasilay oo uu degay xadiiskan waxaa saxiix ka dhigay alxaakim waxaana hubiyey asubki kuna sugay kitaabkiisa shaafici al-siqaami oo micnihiisu yahay bogsiinta kuwa buka